wargeysyada dalkan Holland iyo toddobaadkan waxay soo qoreen Volkskrant ayaa cadadkiisa hore ku soo qoray madaxweynaha dhawaanta loo doortay Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa wiigan ugu baaqay kooxaha islaamiyiinta mayalka adag ee ka soo horjeeda in uu wadanka shariicada islaamka ku dhaqayo taas oo ay shuruud marka hore ka dhiganayeen kooxaha dawladdiisa ka soo horjeeda waxaanu sheegay in aanay jirin imika sabab dagaalada loo sii wado kuwa sii wadaana ay micno la'aan u dagaalamayaan Soomaalidana halaag iyo dhib mar kale u horseedayaan koox la magac baxday shabaab ayaa hore ugu baaqday in aanay dagaalka joojinayn ilaa iyo inta wadanka lagu soo rogayo shariicada islaamka kooxda shabaab ayaa weli wax war ah aan ka soo saarin baaqa ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya dhan kale maleeshiya kale oo iyaguna la magac baxay Xisbul Islaam ayaa daboolka ka qaaday in aanay joojinayn dagaalka waxaanay sheegeen in Shariif Sheekh Axmed iyo dawladdiisu toona islaamnimadu ka dhab ahayn dagaalkana ay sii wadayaan Soomaaliya ayaan lahayn ilaa iyo 1990kii dawlad dhexe waxaana dagaalo qaraadh ay u dhaxaynayaan maleeshiyo beeleedyo kala duwan waxaanay haatan noqotay meelo caan ku noqotay ururada islaamiyiinta mayalka adag oo dagaalo iyo jihaad uga bilaabmay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo dhawaanta mar kale loo dhisay dawlad ku meel gaadh ah oo uu hogaamiyo mid ka mid ah muslimiinta qoonyar socodka ah taas oo aan weli u cuntamin kooxaha islaamiyiinta mayalka adag oo sheegay in aanay joojinayn dagaalka ilaa iyo inta ay helayaan dawlad ku dhaqanta shariicada islaamka sidaasna waxaa lagu soo qoray wargeys lagu magacaabo Volkskrant oo ka soo baxa dalkan Holland Het Parool ayaa isna cadadkiisa hore ku soo qoray ciyaartoyga caanka ah ee reer Brazil Edson Arantes do Nascimento Pele oo sheegay inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku marti qaaday in ay kofi guriga cad ee Mareykanka looga taliyo ku wada cabaan Pele oo haatan 68 jir noqday caana ku ah kubadda cagta una dhashay dalka Brazil saddex goorna ku guuleystay koobka adduunka ee kubadda cagta ayaa daboolka ka qaaday in uu madaxweyne Obama email u soo diray si ay uga wada hadlaan iskaashiga iyo xiriirka labada wadan ee Brazil iyo Mareykanka sidaasna waxaa laga soo xigtay wargeys lagu magacaabo Veja oo ka soo baxa magaalada Rio ee dalka Brazil Edson Arantes do Nascimento oo adduunka looga yaqaano Pele haybadna labadiisa lugood ilaahay uga dhigay ayaa la isku raacay in uu Diego Maradona aad uga xariifsanaa kana heer sareeyay sababtoo ah Pele oo labada lugood kubadda ku darbayn kara kuna ciyaari kara halka uu Maradona uu lug kaliya kaga ciyaari jiray gurayba iska dhoo Pele ayaa si xoog leh dalal badan oo adduunka looga yeeray si uu tababare uga noqdo waxaanu ku gacan sayday lacagaha fara badan ee tababarayaashu qaataan iyo in uu la shaqeeyo ciyaartoyda waqtigan xaadirka ah oo uu ku tilmaamay qaar ama kuwa isku mashquuliya party to party droogada alkoolka sanado yar laga yaabo in ay ciyaaraan dabadeedna laga waayo garoonada iyagoo u go'aya balwadaha marka laga bilaabo sanadkii hore 2008 ayaa la sheegay in uu Pele si rasmi ah u noqday hawlgab waxaanu xaq u yeeshay lacag gaadhaysa €1 bil walba inta noloshiisa uga hadhay waxaa kaloo loo ogolaaday in uu bilaa lacag basaska dalkiisa ku raaco dhan kale Edson Arantes do Nascimento Pele ayaa ah nin shirkado waaweyn oo qandaraasyada qaata leh sidaasna waxaa lagu soo daabacay wiigan Het Parool oo ka soo baxa dalkan Holland De Telegraaf ayaa isna qoray arrin aad loola yaabay oo ka dhacday dalkan Holland haweeney 36 jir ah ayaa saacado gudahood laba qalliin lagu sameeyay iyadoo dhashay laguna qalay ilmaheedii ugu horeeyay isla markaana wadnaha laga qalay kadib markii xanuun weyni kaga soo booday wadnaha haweenadan ayaa la sheegay in uu xanuun darani kaga soo booday laabta waxaanay si degdeg ah ugu oroday isbitaalka hase yeeshee waxaa laga wargeliyey in aanay haba yaraatee wax xanuuna qabin oo uu hayo hargab yar oo dadka wadankan Holland waqtigan oo kale ku dhaca intaas kadib waxay ku noqotay gurigeedii saacado yar markay joogtay ayay bilowday in ay dhiig xinjira leh ay tufto waxaanay goosatay in ay mar kale dhakhtarkii ama isbitaalkii ku noqoto isla dhakhaatiirtii markii hore u sheegtay in aanay waxba qabin ayaa markan dareemay in xanuunkani haweenaydu aanu ahayn
hargab yar oo keliya waxay la yaabeen dhiigga ay tufayso waxaanay isla markaasna ogaadeen baadhitaan kadib in ay leedahay xanuun wadnaha oo khatar ah una baahan in si degdeg ah loo qalo haweeneyda uurka leh xanuunkaas oo lagu magacaabo aorta dissection dhibaatada jirtay ayaa noqotay haweeneyda oo 36 weeg ilmo ah caloosheeda ku wadata wadnahana aan la dhayalsan karin aad ayay dhakhaatiirtu isugu naxeen markii ay soo shaac baxday haddii haweeneyda la qali waayo 48 saacadood gudahood in ay israacayaan iyada iyo ilmaheedu waxaana lagu qiyaasay nolosheeda haddii la qalo 25% in ay noolaanayso cajiib haweeneydii ayaa lagula degdegay qalliinkii si loo kala badbaadiyo iyada iyo ilmaheeda marka hore waxaana laga soo saaray wiil yar intaa kadib ayaa wakhtiga oo yar awgeed lagu sameeyey qalliin wadnaha oo la sheegay in uu socday 8 saacadood sidaa laga soo xigtay dhakhaatiirta iyo isbitaalkaba haweeneydan oo lagu magacaabo Rachel Joy ayaa lagu soo warramay in ay haatan ka soo kabantay xanuunka weyn ee wadnaha kaga soo booday iyadoo uur leh waxaana la badbaadiyey iyada iyo ilmaheedii curad oo caafimaad qaba waxaase weli lala yaaban yahay dhakhaatiirta markii hore aad u dhayalsatay haweeneyda uurka leh ee wadnaha lagaga hayo kuna yidhi marka hore ee ay u timi hargab yar oo keliya ayaa ku haya dhayalsiga dhakhaatiirta ayaa laga yaabaa in ay nolosha aadamaha halis gelin karaan sidaasna waxa qoray The Telegraph oo ka soo baxa dalkan Holland halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa hoyga Soomaalida Holland Radio Dalmar toddobaadka iyo wargeysyadii dalkan Hollandna maanta intaas ayay inoogu dhan yihiin